بسم الله الرحمن الرحيم أصحابta sharafta leh meel kasta ay joogtiin waxaan ugu salaamaa salaanta islaamka maanta waxaan ka hadli rabaa barnaamij badan oo isdaba yaalo laakiin insha Allah waxaan hormaray ciyaaraha u dambaysiya first one waa aragnay horta in badan way fiirsadeen soo maleynaya dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dadka qadka isticmaala YouTube ka isticmaala door walaasheen oo dhibaataysan oo wadanka walaalaanahay Saudi waa wadan muslim ah laakiin dhibaatada ka soo yeerayso waa beedka Ilaahay ku yaalo lama xaram marka laakiin waxyaalaha laga sheegayo oo dadka walaalaha ee Soomaaliyeed oo gabdhaha ah dhibaatada laga sheegayo meesha gabar walaasheen ah oo waxyaalaha afka qaba karan loo sameeyay meesha booyeesi iyo waxaas waa dadka la wadanayo kaleento Saudi u taariibinay dhahay dhibaatada leedahay walaalayaal waa aragteen maxaa yeelay gabadhaas walaasheen waxyaalaha lagu sameeyay qof bini aadam wuxuu afkiisa soo qabta male waa haya fiidiyogaas inuu niilo wadaaga laakiin waa ka xishooday maxaa yeelay waxyaalaha afka bini aadam oo qofka oo muslimka soo qabanaynin oo nimanka ragana si nimanka raga marka walaalayaal waxaan rajaynayaa meel kasta joogtiin Soomaaliyeed qurbo waa aragteen waxay tahay qurbo dhibaatada leedahay aniga dhan waa aragnay aniga iska manbiciyaa qurbo ku noolahay laakiin wadamada Afrika ku noolaa maxaa yeelay waa aragnay wadanka noogu dhow muslimna asaas waxyeen kabada wadamaha kale inta qarsan ada wiil oo universal oo kale inta laga sheekiyay caloolxumada waayaweysa dhibaatada loo geystay gabar Soomaaliyeed bas aga aqoonsado dhaay saaleeyay Ilaahay waa oge woo ooynayaan waxyaalaha afkiisa oo qabanayna lagu sameeyo waa fahmi kartaa waxaas oo kale maxaa yeelay war meel kasta waa ku dhibaataysan war dhibaatadan Ilaahay anaga qaad war meel kasta joogtiin war gacmaha inaan isqabsan wadankeena u duceyno wadanka aan dareemo joog war meel kasta gabdhaheeni hada booyeesinimo dhibaato oo loo haayo oo guryaha marka la geeyo waxyaalaha farxan lagu sameeyay ma loo dul qaadan karaa mudul qaadan karnay gabdho aan oo dhalatay waan oo dhashteen waa dhaleena ilaahay ku samdiiday waan qaleen maamuy maxaa yeelay dhibaatadaas oo kale qof bini aadam oo min rag ee uma adkaysan kara gabar walaashiisa ninkaas oo kale walaashiisa oo kale adiga qof kasto oo gabar oo muslim waxaan naftadaada raban aad uma qaadays marka walaalayaal waxaan leeyahay Soomaali meel kasta joogtaan jaalid kasta meel kasta joogto gacmaha isqabsada iska warhaaya midka buka midka xanuunsan midka xiran midka caafimaad qaba waa inuu laga warqabo diriskaada ka warqab waa loo baahan yahay diriskaada wuxuu yahay wuxuu gudo inuu ogaatiyaa la rabaa maxaa yeelay hadaa gacmaha isqabsatiin qorta gacmo wada jira wax qabsadaan meel kasta joogtiin hadaa gacmaha isqabsatiin waa iska warhaayaysin maxaa yeelay qofkii xanuunsan iyo qofka kale inta wala fahma meel u socdo iyo meel oo ka imaaday iyo qofkii noo soo cusboonaad iyo qofka mar hor joog laakiin guriga hadda lagu kala xariisan yahay oo ilaa ku sabdiiday dhibaatadaas oo kale waa dhibaato marka walaalayaal waa ka intaas aynu soo gudbay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.